قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه وجه وزارة الخارجية لإعلان سفراء 10 دول غربية كأشخاص غير مرغوب فيهم بعد أن طالبوا xiisad siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo ba'an ayaa ka dhalatay kadib markii koox safiiro reer galbeed ah ay soo fargeliyeen kiiska xadhigga Cismaan Kavala oo ay mas'uuliyiinta Turkigu u gudbiyeen maxkamadda garsoorka ee Istanbul. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sabtidii sheegay inuu ku amray wasiirka arrimaha dibadda inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ugu dhawaaqo in aan dalka looga baahnayn 10 safiir oo ku sugan Ankara loona tiigsado persona non grata kadib markii ay soo saareen bayaan ay ku cambaareenayaan xadhigga Kavala kuna baaqeen in la sii daayo. 10 safiir ee uu madaxweynaha Turkiga Erdogan sheegay in aan dalka looga baahnayn ayaa ah danjariyaasha Mareykanka, Jarmalka, Denmark iyo Finland iyo sidoo kale Faransiiska, Netherlands, Sweden, Canada, Norway iyo New Zealand. sababtuna waa bayaan ku saabsan ganacsadaha Turkiga ee Cismaan Kavala. safaaradaha dalalkan ayaa bayaan ku baahiyay baraha bulshada kaas oo ay ku sheegeen in kiiska socda ee ka dhanka ah Kavala uu mugdi gelinayo dimuqraadiyadda iyo sareynta sharciga Turkiga iyagoo ku baaqay in la sii daayo. Cismaan Kavala waa ganacsade u dhashay dalka Turkiga. dowladda Turkiga ayaa ku eedeysay dambiyo ay ka mid yihiin ka qayb qaadashada afgambigii fashilmay ee ka dhacay dalka Turkiga iyo la shaqaynta dalal shisheeye.